dadku waxay dhahaan ilaahay in badan baan bariyay wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in laga aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 3 nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidla ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax kuu ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobayl baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay 3 nin yidhaahdeen waryaa nin walowba bal wixii aad isleedahay camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari 3 nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku bari mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaha ka mid ah xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkiiyo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cidtoona waxaa siinay waalidka u horraysay wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofku markuu daa gaadho wuu yara seexdaa waa soo toosaa waa yara seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaa kala qaadan hana toosin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waaga ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryaa wuxuu leeyahay yaa rab waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fayguy dhagaxii in buu hanqada laakiin in looga bixi kara maaha mid kale ilaahay bariyey wuxuu ku bariyey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayo dhan adaa le kaxayso hore igu cayaarina intii maalintayduunaa shaqaystay intayduunu sii buu leeyahay wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaasi ilaah waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayd weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyo bayna sheegine kaanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa mise waa kuus dhan oo lacaga oo xoolo aad u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbasha laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo
وماشاasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi illaah bay ku timi eraygaas madaxiisa galay ittaqi illaah wa hooy ilaahay ka cabso ayay ku tiri dabeetana maradiisu dib u xidha iskaga tag dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysay in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso إلهي بو بريي إلهي عمل كاسوكو بريي إله وادقى درادا إن الزنا وتبي تبتنا إلهي دقيق وكفي إذا صدح ذنن متكم من الدعاء دي سواح الواق بلا محي إنه فرجي صدورتي طريق إلى الجنة.